كوركسن cudubada deegaanka Soomaalida ee Liu Booliska oo afartii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo xoog badan kula jiray kooxo argagixisa oo ku soo dilay deegaanka Soomaalida doonayeen in ay ka sameystaan gobol Malaysia ayaa la soo gabagabeeyay gabi ahaanba kuwaasi oo jab xoogani ay ciidamada gaarka ah ee deegaanku ay u geysteen ciidamada deegaanka sida ay warbaahinta dawladda Ethiopia gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida iyo wasiirka amniga ama hogaamiyaha ama hogaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanku uu sheegay ay gabi ahaanba la soo gabagabay bal intaana wixii ugu dambeeyay iyo hawlaha aanan u gudbin aan aqrino war saxaafadeedkii ka soo baxay waxa la soo afjaray kooxdii argagixisada al-shabaab ee 4 maalmood ka hor duulaanka ku soo qaaday aaga Ato ee soo gashay gobolka Afdheer kadib markii ay ciidamada xoogga gaarka ah ee DDS ay ku hareereeyeen aaga Hulhul waxaana la laayay dhammaan argagixisadii naflacaariga ahayd kooxdan argagixisada al-shabaab ayaa ujeedkooda iyo waliba damacoodu ahaa in ay galaan deegaanka Oromia iyaga oo raba in ay sii maraan degmada Ceelkari oo ay ku biiraan kooxda argagixisada ee Shaane argagixisada naflacaariga ah ee al-shabaab iyaga oo aan gaadhin halkii ay u socdeen ayaa waxa laga gubay 13 baabuur oo ay wateen waxaana laga qabtay dhammaan hub isgaarsiin iyo agabkii ay wateen oo nooc walba lahaa howlgalka iyo ay ciidamada xoogga gaarka ee DDS qaadeen 3 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxa lagu dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan argagixisada al-shabaab guusha ay gaadheen geesiyaasha xoogga gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo in la soo afjaro howlgalka waxa qayb libaax ka qaatay shacabka deegaanka Soomaalida oo ciidamada xoogga gaarka garab istaagay iyaga oo heerkii ugu sareeyay u muujiyay iyaga oo ugu deeqay raashin kala duwan xoolaha nool cabitaano lacag iyo waliba dhiig shubis sidaas darteed golaha ammaanka ee dawladda deegaanka Soomaalidu waxa uu u mahadcelinayaa shacabka deegaanka oo sidii horeyba looga bartay u garab istaagay ama garab u siiyay ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka ugu dambeyn golahu waxa uu shacabka la wadaagi doonaa xogaha ku saabsan howlgalka waqtiga ugu horeeya ee ay suurtagal noqoto sida ay uu sheegay ama uu baahiyay xafiiska warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa la soo afjaray gabi ahaanba kooxdaasi ku soo dushay deegaanka iyaga oo si khaldan ama marin habaawsan isugu dayay in ay deegaanka u galaan sidoo kale tana aan markii horeetaba ogeyn waxa deegaanka iyo dadkiisa iyo waliba ciidamada deegaanka Soomaalidu marka la fiiriyo ay yihiin ciidamada deegaanka Soomaalida dadaalo xoog badan oo ay sameeyaan saacadihii la soo dhaafay ayay u suurta galiyay in ay gabi ahaanba ka adkaadaan kooxihii la soo khalday ee deegaanka Soomaalida doonayay inay marin ay Ethiopia inteeda kale u sii maraan ay ka dhigtaan xogaga kala duwan dawladda shacabka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida oo si weyn isu kaashanaya ayaa arintaas ka shaqeeyay gabdhaha ayaa la arkay iyagoo guryaha ku karinaya wax kasta oo cuntooyin fudud oo suurta gelinaya ciidanka in la gaarsiiyo kuwa ayaa caagadaha mariyo ku xiraya ama shaqlay si loo gaarsiiyo biyo qabow ciidanka iyadoo sidoo kale ay dadka qaarkood faylal dhaadheer saacadihii la soo dhaafay ugu jireen dhiig shubis arintani waa mid muujinaysa shacabka deegaanka Soomaalida gobonimadooda iyo sida sharafta lahayd ee ciidankooda habeen iyo maalin u taagan iyaga difaacooda ay u garab istaageen ciidanka deegaanka Soomaalida inta badan marka la fiiriyo talaabooyinka kala duwan iyo cid kasta oo isku soo dayda kuwa mar walba lagu tiirsan yahay waa iyaga maantana waxa ay muujiyeen waxa ay deegaanka u yihiin iyo halka ay deegaanka ka taagan yihiin waxa dhawaan la filayaa in munaasabad weyn oo lagu soo gabagabeynayo guud ahaan howlgalkaasi oo madaxweynaha deegaanka hogaanka nabadgelyada iyo madaxda ugu sareysa gobolka Afdheer iyo xubno kale taba ay ka soo qayb galaan in lagu qaban doono qaybaha hore ee furimaha madaxweynaha deegaanka ayaa isaguna ku sugan meelan aad uga fogeyn jiida hore si uu uga warqabo xaaladaha iyo kolba sida uu dhaqdhaqaaqa iyo waxa soo cusboonaada iyo sida ay xaaladda ciidamada halkaasi ku sugan ay tahay
iskaashigii ay saacadihii la soo dhaafay ama dhowrkii maalmood la soo dhaafay ciidamada deegaanku sameeyeen waa mid keentay guushan weyn ee hadda ay gaareen ciidamada gaarka ee deegaanka iyo guud ahaan shacabka Soomaalida oo ay ciidanku ka jawaabeen walwalkii ay qabeen ee ahaa in kooxdan deegaanka ku soo duushay ay caqabad ku noqon karto xaaladaha kala duwan iyo guud ahaan arinta ee ku saabsan nolosha qaybaha kala duwan sida uu sheegay taliye ku-xigeenka ciidamada gaarka ah ee Liyuga waxa uu sheegay isaguna in dhan kasta iyo waliba qaybaha kala duwan iyo meel kasto ay ka bixi rabeen dhinacyadii ay ka xireen kadibna ay weerar culus ku qaadeen ciidamadu gabi ahaana la soo gabagabay xafiiska amniga aan iraada xafiiska warfaafinta ayaa isaguna baahiyay warbixintan hore idinku soo gudbinay ee ay soo gudbiyeen golaha ammaanka ee deegaanka Soomaalida oo iyaguna arintaasi ka hadlay gabi ahaanba arintani waa mid xilligan muujinaysa ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalidu in ay muhiimad weyn u leeyihiin deegaanka iyo guud ahaan dadka deegaanka Soomaalida waxa kale oo ay tani muujisay in aysan u suurto gali karin kooxo laga soo marin habaabiyay meelo kale in ay dhuumaalaysi ama si khaldan deegaanka Soomaalida iyo wadanka Ethiopia ay ku gali karaan arintani waa guul weyn oo mar kale u soo wada hoyatay guud ahaan shacabka geeska sababtuna waxay tahay nimankaasi oo gudaha Ethiopia u gala ama sida iyagu doonayeen ay u noqoto waxay caqabad ku noqon lahayd guud ahaan shacabka geeska waa arin loo arko in ay arintani muujinayso mid caqabad iyo dhibaato guud ku noqon lahayd deegaanka ciidamada Liyuguna waxay muujiyeen in ay yihiin kuwo khatar kala duwan oo deegaanka soo food saari kara gabigoodaba u babaadhigi kara qayb laxaad leh oo xoog badan ka qaadan kara waana mida ay maanta muujiyeen ee ay ku soo gabagabeeyeen gabi ahaanba arintii ku saabsanayd kooxahaasi nafla caariga ah ee la soo khalday ee deegaanka Soomaalida mooday in aysan waxba amaba ayna cidna ka celin karin oo ay si fudud ku gali karaan waxa kamid ah dadka ka hadlay arintan in taliye Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isaguna waxa uu sheegay argagixisada al-shabaab ay ka talaabaan xadka oo ay gudaha u galaan dalalka dariska la Soomaaliya arintan fariin ayuu ka soo diray oo uu sheegay in dawladda looga baahan yahay inay wax ka qabato arrimahaas qodobo dhowr ah ayuu soo saaray waxay ahayd dawladda Soomaaliya feejignaan inay muujiso ayna iska dhaafto saalashada dhibta dhacday indhaha ay ku eegayaan oo ay noqdaan kuwa ka duwan wixii horay argagixisadu u sameyn jirtay waxa dhacay xilligan marka la fiiriyo arinta gobolka in golaha wasiirada si dhaqso loo dhiso si ay waajibaadkooda u gutaan in guddiga amniga qaranka uu shir degdeg ah yeesho xaaladda khatarta ah ee soo korortayna wax laga qabto in la abuuro jawi kalsooni oo ku salaysan wada tashi joogto ah oo ku qotama ka hortagga khataraha amni iyo waxyaabaha kala duwan ee Soomaaliya quseeyay buuriye wadamada geeska Ethiopia waa dalka aan leenahay xuduudda ugu dheer ayna muhiim tahay in labada dal ay si buuxda isaga kaashadaan arrimaha ku aadan amniga sidii looga hortagi lahaa ama looga hortago buu yiri kooxaha argagixisada ah waxa asaas yiri taliyo hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka hadlayay arinta ee ku saabsan ciidamadaasi deegaanka ee ku soo duulay ee ay ciidamada gaarka ee deegaanku shaqada xoogan ka qabteen